mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 10ka bisha Maarso 2018 aan si rasmi ah u furo kalfadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan fursadan qaaliga ah aan ugu mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka labada gole anigoo u gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah. ugu horreyn waxaan eheladooda iyo ummadda Soomaaliyeed uga tacsiinayaa geeridii ku timid xildhibaan Bootaan Ciise Caalin iyo xildhibaan Saciid Xasan Geedi. waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistiisa jannadiisa siiyo eheladoodiina samir iyo iimaan uu ka siiyo. waxaan sidoo kale si gaar ah ugu tacsiinayaa dhammaan intii ku dhimatay falalkii arxandarrada ahaa ee argagixisada kuwa ku dhaawacmay Ilaahay caafimaad degdeg ah u siiyo. waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa qoysaskii shuhadadii ciidanka qaranka ee geeriyooday ayagoo geesinimo leh dalkooda iyo dadkooda uga difaacaya kuwa nabadiidka ah ee gumaadka ku haya shacabka Soomaaliyeed. waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii jannadiisii eheladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo. intii dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg uga kiciyo. mudanayaal iyo marwooyin waxaa la doortay iyadoo uu dalka u marayo marxalad aad iyo aad u adag ayna jiraan abaaro xaalufiyey dunyadii iyo degaankii mararka qaarkoodna ay abaarahaasi galaafteen dad shacab ah. waxaan dhaxalnay dagaalo adag oo lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee caadaystay inay dhiigga shacabka Soomaaliyeed xaqdarro ku daadiyaan ayagoon u naxayn hooyo aabe caruur iyo walaal toonaba. waxaan dhaxalnay hay-adaha dawladda oo aan u diyaarsanayn inay nidaamka dawliga hoos u daadejiyaan. mudanayaal iyo marwooyin waxaan Ilaahay mahadiisa ah in golayaasha baarlamaanka iyo laamaha kala duwan ee dawladda ay gacmaha ishaystaan oo ay wada shaqayn buuxa lahaayeen taasoo keentay in wax badan inoo qabsoomaan wax badan oo aan gacanta ku haynana ay jiraan in badan oo kalena ay noo qorshaysan yihiin inaan wax ka qabanno hadduu Ilaahay yiraahdo. waa hubaal in wax badani inoo dhiman yihiin duruufo adeegana ay na soo wajahi doonaan laakiin daali mayno nasanna mayno ilaa aan shacabka rajadooda aan ka rumayno insha Allah. sanadkii la soo dhaafay waxaa xaqiiqo ah inay jireen laba dhibaato oo dadkeenna soo gaaray kuwaasoo ahaa abaartii dalka ku habsatay sanadkii 2016 iyo bilowgii 2017 iyo weeraradii kooxaha xagjirka ahaa ee kula kaceen dalkeenna oo midkii 14 Oktoobar 2017 ee uu ahaa kii ugu weynaa. waxaa xusid mudan in annagoo kaashanayna Ilaahayna abuuray aan ku guulaysanay inaan samata bixinno kumanaan qof oo macaluul khatar ugu jiray. haddana waxaan ka shaqaynaynaa aan yareyno waxyaabaha keena aan aad iyo aad aan ugu nugulnahay abaaraha oo siyaasad iyo qorshaba aan ka yeelan doonno sidaan u maarayn lahayn insha Allah masiibooyinkaas. mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan dalka wuxuu u baahan yahay in si buuxda loo sugo nabadgelyadiisa oo dad badan ay ka hadleen gaar ahaan in dib loola wareego meelaha ay cadowga al-shabaab gacanta ku hayaan. si taas loo gaaro waa inaan u hurnaa dhiiggeenna iyo dhaqaalaheennaba. xoreynta dalku waxay keenaysaa nabadduna waxaa ka dhalanaya maamul wanaagsan in la helo kala dambayn iyo xasilooni. qorshaha dawladdu waa in iyadoo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed ay dib u sugto dhammaan deegaanada dalka uu ka kooban yahay gaar ahaan deegaanada ay ku hareen argagixisada al-shabaab kadibna nabad buuxda aan ka dhalino oo aan keenno maamulna aan ka hirgelinno
markaas ayay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay xaqiijinayaan in muwaadin kasta oo Soomaaliya uu helo ama uu heli karo adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu nagu leedahay si ay dowladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro waxaa dadweynaha aan ku boorinaynaa inay bixiyaan canshuurta si dowladdu uga kaaftoonto dowladaha shisheeye ee yaboohooda markaas dowladdu waxa u fududaanaysa inay bixiso mushaharaadka ku filan ciidankeena mushahar fiican ma qaato shaqaalaheenna mushahar ku filan ma qaataan laakiin haddaan cashuur aruurino waxaa noo fududaanaysa oo noo hirgelaysa inaan mushahar fiican aan siino waxaa kaloo noo fududaanaysa inaan xoreyno qaybaha ay cadowga al-shabaab ay uga sugan yihiin dalka waxaa noo fududaanaysa inay bixiso adeegyada bulshada iyo inaan dhisno kaabayaasha dhaqaalaha waxaan dhowr mar aan ku shaqeeyey oo aan tegay wasaaradda gaashaandhigga si aan ugu kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlo maalmeedkooda guud inaan ogaano waxaan ii caddaatay inay ka socoto shaqo xoog leh oo ay ka mid tahay sidii tirakoob rasmi ah iyo dib u habeyn loogu sameyn lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale dowladdu iyadoo la shaqeynaysa dowlad goboleedyada dhammaystirtay qorshihii abaabulka iyo howlgelinta ciidanka sidii aan dalka uga xoreyn lahayn cadowga al-shabaab ciidamada amnigu waxay guulo la taaban karo ka soo hooyeen ammaanka iyo xasiloonida caasimadda dalka ee Muqdisho inkastoo shaqooyin badan loo baahan yahay in la qabto oo inoo harsan yihiin waxaa dowladda ay ka shaqaysay sidii kor loogu qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa shacabka iyo ciidanka qaranka tani waxay muujinaysaa in muhiimadeena koowaad ay tahay amniga mudanayaal iyo marwooyin dowladdu waxay dejisay istiraatiijiyad difaac annagoo la shaqaynayna dowlad goboleedyada bilownay isku dhafidda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay fududeynaysaa inaan mideyno awooddeenna iyo cududeenna si aan dalka aan u xoreyno waxaa dhinaca kale ee ka socda dadaallo loogu jiro sidii annagoo kaashanayna AMISOM African Union European Union qaybaha kale ee bulshada caalamka aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas'uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow aan ugala wareegno waxay arrintaasi marka ay hirgasho suuragelinaysaa koow in aan annagu qaadanno mas'uuliyadda nabadgelyada dalkeenna labo in walaalaheenna AMISOM aan ka nasinno culayska aan ku hayno ee ay har iyo habeen u taagan yihiin difaaceenna dhiigoodana noo huri jireen iyo weliba inaan waddamada deeqaha bixiya aan ka nasinno culayskii dhaqaale ay ku bixin jireen difaaca dalkeenna si himilooyinkeennaas difaac aan u gaarno waxaa shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walbaba waa inaan ka qayb qaadanaa dowlad iyo shacabba difaaca dalka waa inaan dhaqaalo ku bixinnaa dib u dhiska iyo taageeridda ciidanka qalabka sida waa inaan xoogga saarnaa sidii aan uga difaaci lahayn dalkeenna argagixisada ku soo duushay mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar badan oo ka mid ah waa la khalday sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno cid kasta oo is soo dhibtana kana toobad keenta falalkaas foosha xun ee argagixisnimada ahaa waxaan dadka is soo dhiiba siin doonnaa daryeel aysan ku dhaxaysan kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa is soo dhiibay oo gacanta dowladda soo galay waxaana dowladdu Soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhaweynayso ciidan kasta
ciidankaas oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ah. mudanayaal iyo marwooyin, dowladdu waxay dadaal badan ku bixisay sidii maamulka hawada Soomaaliya loogu soo celin lahaa dalka. shaqo adag kadib waxaa Ilaahay mahadiisa ah in dowladdu ku guulaysatay in maamulkii hawadeenna aan dib u soo ceshanno. waxay arrintaasi qayb ka tahay ama ka ahayd xaqiijinta madax bannaanida dalkeenna iyo qarnimadeenna oon marnaba gorgortan gelin. waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sugi doonno ilaalinta iyo maamulidda hawadeenna, ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba. mudanayaal iyo marwooyin, dhinaca kobcinta dhaqaalaha waxaan Ilaahay mahadiisa ah inay dowladdu suurtagelisay in dakhliga dowladda oo ahaa 4.6% sanadkii tagay sanadkii tagay sanadkan maxaan ku raahdaa la gaarsiiyey 7.2. taasi waxay sheegaysaa in dakhliga guud oo uu kor u kacay 3.4%. kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa inay dowladdu la dagaalantay musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta. waxaanan idin xaqiijinaynaa inaan sii wadi doonno la dagaalanka musuqmaasuqa. si taasi ay u hirgasho waxaa xukuumadda ay meel marisay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo haatan hor yaal aqalka sare, kaas oo aan rajaynayno in aqalka sare uu ansixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan, sidii sharafta lahayd ay golaha shacabku ay u ansixiyeen sanadkii la soo dhaafay. waxaa sidoo kale idin hor yaalla in ku dhow 14 ilaa 15 hindis sharciyeedyo iyo heshiisyo caalami ah oo marka la ansixiyo hawsha dowladdu ay wax badan ka bedeli doonto. sidaas awgeed waxaan xildhibaanada sharafta leh aan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan sharciyada hor yaalla iyo kuwa kale ee ay xukuumaddu ay soo wado. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xusid mudan in hay-adaha lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF iyo World Bank ay qoraalkoodii ugu dambeeyey qirtay in qaab xisaabeedka dawliga ah ee Soomaaliya uu yahay mid hufan oo daahfuran. hufnaanta maaliyadeed ee aan muujinnay waxay noo sahlaysaa in laga cafiyo deymaha tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa. waxaan xaqiijinnay in dhammaan shaqaalaha dowladda mushaharadoodii si toos ah ay ugu dhacdo koontiyooyinkooda, taas oo meesha ka saartay in la musuqmaasuqo xuquuqda shaqaalahana ay meel xun marto. mudanayaal iyo marwooyin, si dalka uu galo xasilooni siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni, ayna u hirgasho nabadda iyo dib u heshiisiintu, waa in sharcigu noqdaa mid sarreeya oo dhammaanteen aan u hoggaansanaanno. ixtiraamka sharcigu iyo kala dambayntu waa midda keliya ee Soomaaliya ay kaga bixi karto xaaladda ay hadda ku jirto. sidaas awgeed fulinta sharcigu waa waajib na wada saaran dhammaan dowlad iyo shacabba. waxaa ii dhammaatay daraasad dheer oo aan ka waday xaqiiqda dhabta ah iyo cabashooyin badan oo nooga yimid maxkamadda iyo cadaaladda. waxaan joognaa waqtigii aan sixi lahayn, insha Allahna si degdeg ah ku saxeynaa insha Allah haddii la yiraahdo. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan muhiimad gooni ah aan siinay dib u eegista dastuurka oo shaqo adag ah runtii. wasaaradda dastuurka iyo guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka iyo guddiga dastuurka ee independentiga ah ee xorta ah, waxaan doonaynaa iyagoo midaysan oo wada tashin la sameeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada si aan u dhammaystirno dastuurka uuna u noqdo mid shacabka Soomaaliyeed ay qayb ka qaataan oo ay ku qanacsan yihiin hadduu Ilaahay yiraahdo. mudanayaal iyo marwooyin, xiriirka aan la leenahay dalalka deriska ah iyo kuwa caalamka
waa mid ku dhisan xushmo iyo is-ixtiraam iyo wada shaqayn si aan u xaqiijinno aan u xoojinno danaha aan wadaagno siyaasadda arrimaha dibaddu waa albaabka ay naga soo galayaan dalalka caalamka sidaas awgeed waxaan qaadanay siyaasad ku dhisan dhexdhexaadnimo iyo furfurnaan si aan u adkayno xiriirka aan la leenahay caalamka taasna waxay ka dhalanaysaa in loo macaamilo si siman dhinaca kale dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waa dhab waa dhab inaan xaalad adag ku jirno waa dhab inaan duruufo adag ku jirno waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay usan fiicnayn oo dhutiyo waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii waa dhab dad qaar ay inaysan fahamsanayn canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la'aan haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid waa xaqiiq in hay-adaheena dawliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaan ay yihiin waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan waa xaqiiq weeye waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda Soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka waa xaqiiq weeye intaas iyadoo ayna haysato Soomaali waxaa la rabaa qofkii aan fahamsanayn Soomaali waxay tahay inaan fahamsiiyo dadka Soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dhib walba ay ku jiraan waa dad adag dadka Soomaaliyeed waa dad damiir leh dad raqiisa ma aha dadka Soomaaliyeed waa dad qiimeeya dalkooda qiimeeya oo wadaniyiina dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa dad u taagan inay difaacaan dalkooda aysan ogolaanin marnaba aysan ogolaanin hal taaka dhulkooda ka mid ah in si xun ku baxo sidaas darteed waxaan idiin sheegayaa xiriirka aan la leenahay dowladaha dariska ah waa mid ku salaysan ilaalinta nabadgelyada gobolka ganacsiga isu socodka dadka inaan iska kaashanno dhinacyo badan waxaan sameeyey safarro aan ku tegey dalalkaas dariska ah waxaan si dhow aan uga wada hadalnay in aan wadajir uga hortagno dhibaatooyinka soo wajaha gobolka waxaan ku guulaysanay inaan isfaham ka gaarno sidii si wadajir ah loo ciribtiri lahaa wax kasta oo xasilooni darro u keeni kara gobolka
mudanayaal iyo marwooyin waxaan ilaahay mahadiisa ah inaan sidoo kale aan ku guulaysanay soo celinta boqolaal dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ku jiray xabsiyo shisheeye sida India, Ethiopia, Seychelles iyo Libya qaar kalena aan wali ka shaqeynayno sidii aan dalkooda ugu soo aan celin lahayn iyagoo bad qaba mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxay dadaal xoog leh ay ugu jirtaa sidii aan dib ugu soo noolaan lahayn doorkii hogaamineed ee aan ku lahayn ee dunida waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago in dadaal aad u badan kadib ay dawlad Soomaaliyeed ku guuleysatay in garsoore sare Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah nin Soomaali ah loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee adduunka taas oo garsoore sare Cabdulqawi ka dhigaysa ninkii koowaad ee Afrikaan ah oo muddo 25 sano ah kadib gudoomiye ka noqdo maxkamaddaas caalamiga ah iskama imaano shaqo badan ayaan gelin sidoo kale waxaan hadda dadaal aan ugu jirnaa inaan markii ugu horeysay aan hogaamino urur goboleedka IGAD executive secretary oo aan ka mid ahayn dawladihii aasaasay waxaanan haysanaa fursad aad u wanaagsan in naloo doorto jagadaas hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale ka shaqeynaynaa sidii aan u horumarin lahayn xiriirka Soomaaliya iyo dalalka bariga iyo koonfurta Afrika si aan uga faa'iideysano ganacsiga iyo wax wada qabsiga wadamadaas sidaas awgeed waxaan dadaal ugu jirnaa sidii ay Soomaaliya qayb ay uga noqon lahayd wadamada ku bahoobay ururka COMESA oo ah suuqa ganacsiga oo mideeya wadamada bariga iyo koonfur Afrika waxaan sidoo kale aan dadaal xoogan aan ku bixinay sidii loo aas-aasi lahaa urur goboleed ganacsi oo cusub oo ay yeeshaan wadamada geeska Afrika kaasoo dhammaan wadamada qaybta ka ah u horseedi doona horumar dhinacyo badan taabanaya sida nabadgelyada dhaqaalaha bulshada iyo kuwa badan waxa intaas dheer inaan ka shaqeynayno hadda inaan ka mid noqono East African Community ururka la yiraahdo inaan qayb ka noqono hadduu Ilaahay yiraahdo oo aan ka shaqeynayno arjigan waa hadda xariisan yahay mudanayaal iyo marwooyin dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka ah waxay mar kasta ka wada shaqeynayaan danta dalka iyo dadka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka ah si aan dalka ugu diyaarino doorasho hal qof iyo hal cod ah oo qof kasta uu si toos ah u doorto golayaasha deegaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha qaranka haddii la isku raaco ayadoo la raacayo hanaanka xisbiyada siyaasadda waxaan bilihii ugu dambeeyay guddi khubaro ah iyo howlwadeenno Soomaali ah ay sameynayeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada ay noqon doonto marka la fiiriyo xaaladaha amniga dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeenu uu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay guddigaani waxay noo keenayaan options qaabka electionka uu noqon doono insha Allah iyo noocu noqon doono go'aan qaadashadeena kadib waxaa haddii alla idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynahan la wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020 marka baarlamaanku ansixiyo hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaanan u saarnay guddi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin si arrimahaas loo xaqiijiyo waxaan si nasasho la'aan aan uga shaqeeyay inaan xiriirka ka dhaxeeya
dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu gaaro heerkii ugu sarreeyey xiriirkaas oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham ujeeddadiisuna tahay sidii loo gaari lahaa himilada guud ee dalka iyo dadka si kastaba ha ahaatee waxaan si daahfuran u qeexaynaa in dhammaan arrimaha masiiriga ah ka wada shaqaynayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu loogu soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si waafaqsan dastuurka dhinaca kale annagoo ka duulayna sidii aan dib uga hanan lahayn qarannimadeennii midnimadeennii iyo sharafteenii waxaan haddii alla idmo dhowaan aan bilaabi doonnaa wadahadalladii dowladda federaalka la waday somalilan kuwaasoo ujeeddadoodu tahay sidii aan dalkeenna iyo dadkeenna ugu horseedi lahayn mustaqbal wanaagsan oo gobonnimo leh dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah oo aan kala maarmin wixii khilaaf ahna waxaan ku dhamayn doonaa miiska wada hadalka dushiisa Ilaahay raaxo mudanayaal iyo marwooyin muddo gaaraysa 17 maalmood ayaa aniga iyo wafdi heer wasiiro iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxaan safar dhulka ah ku marnay gobolada Bari Nugaal Mudug iyo Galguduud safarkaas oo ahaa nabadeyn iyo dib u heshiisiin wuxuu ahaa mid wax badan kaga soo qabanay wax badanna aan ka soo barnay dhammaan deegaanadaan tagnay wuxuuna ahaa safar taariikhi ah mudanayaal marwooyin waxaan u mahad celinaynaa dadweynihii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa oo meel walba nagu soo dhaweeyay waxaan ku ammaanayaa sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen horumarkooda iyo xasilintooda deegaanadooda intii aan ku guda jirnay safarkaas waxaanan ku guulaysanay inaan dhammaystirno dib u heshiisiin maamulka Galmudug iyo ahlu sunno wa jamiica waxaan shaqo fiican ka qabanay oo aan ku guulaysanay inaan dib u heshiisiin dhab ah u sameeyno magaalooyinka Galkacyo Cadaado Dhuusamareeb Xeraale iyo Caabudwaaq waxaa hadda socda dib u heshiisiin laga waday magaalooyinka Gurceel iyo Balanballe khayr Allah siiyo wasiirka koowaad ee Galmudug Sheekh Shaakir hawsha wanaagsan oo halkaas ka geystay iyo sida wanaagsan oo dadkaas waalaha isugu soo dhaweeyay ilaahi hadda wax badan ayaa ka fulay dib u heshiisiintii aan ka bilownay dadka deegaanadaas ku noolaa waxay dareemeen muhiimaddu ay leedahay in nabad lagu wada noolaado deegaanadaas aan soo marnay waxay ahaayeen meel ammaan yahay oo nabada taasina waxay adduunka u ahayd cashar in Soomaaliya ay ka soo kabanayso haddana ay higsatay horumar iyo nabad dhammaan madaxdii aan kula kulanay Addis Ababa markii aan ka qayb galay shirkii madaxeedka ahaa ee Soddomaad ee Midowga Afrika waxay igu hambalyeeyeen socdaalkii nabadeed iyo dib u heshiisiin taasina waxay adduunka tustay in aan isku tashanayno oo u soo jeesanay sidii aan dalkeenna u hagaajisan lahayn mudanayaal iyo marwooyin intii aan safarkaas ku jirnay waxaan dhagax dhigay dhismayaal kaabayaasha dhaqaalaha ah sida wadooyinka garoomada diyaaradaha dekedaha iyo abuurista mashruucyadii aan dhagax dhignay waa kuwa aan isku tashanayno innagoo ah dowlad iyo shacab si aan gacanteenna ugu samayno horumar mudanayaal iyo marwooyin waxaan si gaar ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan uga codsanayaa inay ka qayb qaataan nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuulada iyo xarumaha caafimaadka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka dekedaha dib u heshiisiinta dalka iyo wixii la mid ah waa inaad difaac walaalayaal
waa inaad difaaca iyo horumarinta dalkiinna ku bixisaan naftiinna hantidiinna iyo wakhtigiinna oo aynan sugin yabaho shisheeye mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa noo furan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.